assalaamu calaykum kusoo dhowaada qaybtii afaraad iyo barnaamijkeeni diiniga ahaa ee ma og tahay ama hal taclam oo aan maanta kusoo qaadan doono qaybo ka mid a asxaabta nabiga sala allahu calayhi wasalam innaka uu soo gudbin doono waxyaabo laga yaabo in dadka qaarkii ay ka qarsoon yihiin balse marka hore fadlan haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir oo sabskrayb dheh janalka dacwada diinta ee ilayska islaamka si aad noola faa'iidaysato mahadsanid. ma og tahay afartii saxaabi ee uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qur-aanka ka qaata inay kala ahaayeen ubayi ibnu kacab, cabdullaahi binu mascuud, mucaad binu jamal iyo saalim mawla abi xudayfa. afartaa saxaabi ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ka qaata qur-aanka, yacni nabiga wuxuu u bogay oo uu u qiray inay yihiin xufaad qur-aanka si fiican u taqaana, waxayna ku jireen ragga ugu sarreeya asxaabta nabiga. ma og tahay saxaabiga lagu magacaabo xandala inuu ahaa saxaabiga keli ah ee ay malaa'igtu dhaqday bayna asamaa'i wal ardi, cirka iyo dhulka dhexdooda. ma og tahay se sababtay u dhaqday inay ahayd isaga oo aroos ah oo habeenka guri galay ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu muslimiinta ugu yeedhay jahaad inay u baxaan dagaalkii uxud. xandala wuxuu sugi waayay inuu ka qabaysto janaabadii uu qabay. wuxuu ka yaabay in ciidanka ay ka tagaan ama uu jahaadka kadib dhaco, isagoo uu ajiibaya hadalka ilaahay iyo hadalka nabiga sala allahu calayhi wasalam ayuu degdeg kusoo baxay, wuxuuna ku shahiiday dagaalkii uxud. markii uu shahiiday malaa'igta ayaa ka dhaqday janaabada, ilaahay ha ka raali noqdo. ma og tahay saxaabiga lagu magacaabo sacad binu mucaad inuu yahay saxaabiga keli ah ama qofka keli ah ee dhimashadiisa iyo mowdkiisa carshiga ilaahay u gilgishay. markii uu dhintay carshiga ilaahay ayaa u gilgishay. ma og tahay se inay salaadii janaasadiisa kasoo qayb galeen 70,000 oo malag, taa oo caddaynaysa fadliga iyo qiimaha uu ilaahay agtiisa kalaha sacad, loona furay dhammaan albaabada samaawaadka. allaha ka raali noqdo sacad binu mucaad. waxaa la wariyaa inuu 6 sano oo keli ah uu islaam ahaa, laakiin waqti yar isagoo islaama ayuu wuxuu gaadhay heer ilaahay subxaana wa tacaala carshigiisa u gilgisho. ma og tahay saxaabiga keli ah ee magaciisa si sariixa si cad qur-aanka loogu sheegay inuu yahay zayd binu xaaris, kaa uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay ama kaga qisaday suurat laxzaab oo uu yidhi falamaa qadaa zaydun minhaa wadaran zawajnaaka. ma og tahay saxaabiga u horreeyay ee soo gala magaalada madiina isaga oo soo hijrooday kana soo hijrooday maka inuu yahay saxaabiga lagu magacaaba abu salama, allaha ka raali noqde. ma og tahay saxaabiga lagu magacaabo suhayb ruumi inuu ahaa saxaabigii ku bedeshay xoolihiisii oo idil hijrada darteed. markii uu soo hijrooday ee uu soo aaday magaalada madiina waxaa qabtay quraysh, waxayna isku dayeen inay celiyaan, laakiin wuxuu ku yidhi haddii aad isku daydaan inaad hor istaagtaan waxaan halhal idinla dhacayaa leebasha aan wato ilaa ay dhammaadaan. wuxuuna ahaa nin aada u shish badan. quraysh waxay kala hadheen xoolihiisii oo idil, isagana dan kama gelin. hadafkiisa wuxuu ahaa inuu diintiisa iyo iimaankiisa badbaadiyo oo uu tago meel ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa uu ku ilaashado. waa uu kasoo tegay, waxaana kusoo degtay aayadan qur-aanka ah wamin annaasi man yashri nafsuhu ibtiqaa'a mardaati illaah wallahu ra-uufun bilcibaad. ma og tahay saxaabiga lagu magacaabo cumar binu khadaab inuu ahaa saxaabiga keli ah ee si cad u hijrooday. asxaabta nabiga markay hijroonayeen dhuumaal ayay ku baxayeen, waayo quraysh ma rabin mana u ogoleen inay aadaan magaalada madiina, waayay cadaabayeen, waa ayna dhibayeen, waa ayna celinayeen. laakiin cumar binu khadaab wuxuu ahaa nin shujaac ah, geesi ah, wuxuuna yidhi ninkii raba inay hooyadii gablantow iga daba imow, waa ayna ku dhici waayeen. ma og tahay saxaabiga lagu magacaabo zayd binu thaabit inuu ahaa saxaabigii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu amray inuu barto kitaabada, yacni farta iyo luuqada yuhuudda, si uu nabiga sala allahu calayhi wasalam ugu akhriyo waraaqaha iyo risaalooyinka ku qoran luuqada yuhuudda, sharkoodana uu uga magan galo, waayo yuhuuddu waa ay dhagar badnaayeen. ma og tahay qofkii u horreeyay ee muhaajiriin ah ee ku dhashay magaalada madiina inuu ahaa saxaabiga lagu magacaabo cabdullaahi binu zubayr binu cawaam.
ma ogtahay saxaabiga lagu magacaabo Cuthmaan ibnu Cafaan inuu ahaa saxaabigii ay dartii u dhacday baycatu ridwaan? ma ogtahay sidoo kale inuu ahaa saxaabiga lagu magacaabo Dhulnuurayn, sababta loogu bixiyeyna ay ahayd inuu qabay oo guursaday laba gabdhood oo nabigu dhalay sallallahu calayhi wasallam? ma ogtahay saxaabiga lagu magacaabo Salmaan al-Farisi ama Salmaan al-Farisi inuu ahaa qofkii inta ugu badan xaqa raadiyey si uu diinta dhabta ah ee xag Ilaahay ka imaatay u haleelo? wuxuu u maray dhul fara badan, wuxuuna u galay diimo fara badan, wuxuu ula kulmay dhib aad iyo aad u fara badan, wuxuu u noqday addoon, wuxuu u bixiyey xoolihiisii, wuxuu uga soo tegay dhulkiisii, ehelkiisii iyo dhammaan wuxuu haystay oo idil, ilaa uu markii dambe nabiga sallallahu calayhi wasallam kula kulmay magaalada Madiina. welina nabiga waa uu tijaabiyey, wuxuuna ka fiiriyey calaamadihii nabinimada, sida calaamadii garabka hoosteeda kaga taalay nabiga sallallahu calayhi wasallam, iyo inuusan nabiga sadaqada qaadan, waa uu ku tijaabiyey. wuxuu leeyahay Salmaan taariikh aad iyo aad u dheer, wuxuuna taariikhda islaamka ka galay baal dahab ah. mar ayaan si fiican ooga sheekayn doonaa taariikhdiisa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. ma ogtahay Salmaan inuu ahaa ninkii keenay khibradii ama taatikadii cajiibka ahayd ee nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtu ay kaga guuleysteen gaaladii isku soo bahaysatay dagaalkii Axzaab, si ay nabiga iyo asxaabta uga takhalusaan? waayo dagaalka Axzaab nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa isku soo bahaystay qabiilo aad u fara badan. yuhuudi magaalada Madiina la degnaydna ballankii waa ay uga baxeen. Salmaan marka wuxuu keenay taatikadii ahayd in ay qotaan godadkaas oo aynan fardaha ka boodi karin ama aysan mari karin oo ay ku dhexdhacayaan, si ay ugu noqoto muslimiinta difaac. tii ayayna nabigu qaatay oo saxaabadii sameeyeen kuna guuleysteen. allaha ka raali noqdo Salmaan al-Farisi iyo dhammaan asxaabta nabiga sallallahu calayhi wasallam. intaa ayaa idiin soo gudbiyey, waxaan filayaa inaad wax ka faa'iideen. fadlan haddii aad ka heshay la sii wadaag walaalahaada kale. assalaamu calaykum.